guddigii u dhowaan magacaabay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee ka hortagga xanuunka coronavirus-ka ee ka koobnaa xubnaha golaha wasiirada oo kulamo joogta maalmihin la soo dhaafay ku yeelanaya halkani oo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland ayaa waxay maanta soo saareen awaamir iyo qaraar ku aadan in xukuumadda Soomaaliland gabi ahaanba albaabada u laabtay xuduudiyaha la wadaagi jirtay wadamada jaarka isla markaana xuduudka kaliya ay ka gudbayeen gaadiidka sida raashinka iyo dawooyinka waxaana sidoo kale guddigu sheegeen in garoonka diyaaradda ka soo degaan kana haadaan cigaal international airport dadka muwaadiniinta ay ka soo degan muddo 14 cisho ay ku xanibnaan doonaan isla markaana kharashka ku baxaya ayagu isu qabaan waa sida ay sheegeen guddigu haddaba gudoomiyaha guddigaasi ahna wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland oo qaraarkaasi iyo sidoo kale awaamirtan shacabka loo soo jeediyay ka hor akhriyay golihii ay isugu yimaadeen guddigu ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus kadib markii ay qiimeyn ku sameeyeen xogaha iyo xaaladihii u dambeeyay ee la xiriira xanuunka safmarka ee coronavirus ee halayla dunida isla markaana ay darseen hawlaha loogu diyaargaroobayo lagana hortagayo xanuunka waxa ay go'aamiyeen qodobadan hoos ku xusan ugu horreyn waxa bulshada Soomaaliland lagu adkeynayaa inay ka taxadaraan halista xanuunka coronavirus ayna raacaan fariimaha wacyigelinta ah ee loogu talagalay ka hortagga xanuunka ee bahda caafimaadku la wadaagayso bulshada. Guddidu markay qiimeysay xaaladda rakaabka ka soo degaya madaarka cigaal international airport waxay go'aamisay in dhammaan rakaabka la socda diyaaradaha ee soo galaya dalka laga bilaabo maanta in muddo 14 cisho ah lagu haynayo goobo gaara oo lagu karantiimaynayo muddadaas oo la hubin doono xaaladooda caafimaad iyagoo rakaabkaasina isku qabi doona kharashka ku baxaya muddada 14 cisho ah ee la haynayo. waxa la xidhay dhammaan xadka dhulka ee Soomaaliland la leedahay dalalka Itoobiya, Djibouti iyo Soomaaliya muddo 3 toddobaad oo ka bilaabmaya berri oo bishu ay tahay 26 bisha 3 2020 marka laga bilaabo 6 maqribnimo. waxa kaliya oo ka soo gudbi kara waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agabka kala duwan ee caafimaadka iyo wixii lamid ah. waxa la xidhay qodobka afraad waxa la xidhay dhammaan marsooyinka badda ee Soomaaliland marka laga reebo dekedda Berbera oo ay ka soo degi karaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agabyada kala duwan ee caafimaadka iyo wixii lamid ah laga bilaabo berri oo bishu ay tahay 26 bisha 3 2020 maqribnimo marka la gaaro. 5 mas'uuliyiinta wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda waxa lagu wargelinayaa inay shaqaalaha ay ka maarmayaan ay faraan inay ku shaqeeyaan guryahooda iyagoo shaqaalahaasina ku jiri doona eegan buuxa. arrintani ma saameynayso wasaaradaha iyo hay'adaha hoos ku xusan oo duruufo gaar ah awgeed looga baahan yahay inay si buuxda u shaqeeyaan. hay'adaha iyo wasaaradaha waxa ka mid ah shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka, 2 shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda, 3 shaqaalaha wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, 4 shaqaalaha madaarka cigaal international airport, 5 shaqaalaha dekedda Berbera, 6 shaqaalaha wadada Ceelgaabo Burco, 7 shaqaalaha bangiyada Soomaaliland, 8 shaqaalaha dawladaha hoose ee dalka. qodobka u dambeeya 6 hay'adaha dawladda ee u xilsaaran fulinta go'aanada loogu diyaargaroobayo lagana hortagayo xanuunka COVID-19 ee guddigu soo saartay waxa lagu wargelinayaa inay cid kasta oo ka dhaga adeegta hirgelinta go'aanadan ay tallaabo sharci waafaqsan ka qaado. Somal Abdi Ahmed Karile, Kalson TV, Hargeysa.